السلام الله عليكم. ما qiyaasi kartaa inaad habeenka saseexato musqulaha saldhigga tareenada adigoo wiilkaaga yar gacanta haya haddana maalin kasta u kacdid sidii aad ku noqon lahayd milyaneer. Maanta waxaan idin wadaa sheekadii Krish Gardner, ninkii adduunka oo dhan baray inay riyadu aysan lahayn xuduud. Sanadkii 1981 Krish Gardner wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada San Francisco. wax walba oo lacagtiisa ku maalgashtay way ka khasaareen, xaaskiisana way ka tagtay. Isaga iyo wiilkiisa yaraa ee 5 jirka ahaana waxaa laga saaray gurigii ay deganaayeen. Krish iyo wiilkiisu waxay noqdeen homeless. Habeenada qaar waxay seexan jireen goobaha dadka danyarta lagu caawiyo, habeenada kalena waxay ku dhuuman jireen musqulaha saldhigga tareenada si ay dhaxanta ugu gabadaan. Isagoo xaaladaas ku jiro ayuu go'aansaday inuu barto ka shaqaynta saamiyada. dadaal dheer kadib Krish wuxuu helay fursad uu kaga qayb galo tababar shaqo oo lacag la'aan ah. Subaxdii wuxuu baran jiray shaqada isagoona xiran jiray suud nadiif ah, habeenkiina wuxuu saf ugu jiray si uu u helo meel uu wiilkiisa yar seexiyo iyo raashin bilaash ah. Ma jirin qof ogaa shaqada uu ku jiray iyo inuu yahay qof aan guri haysanin oo homeless ah. Dagaal dheer kadib Krish wuxuu ku guuleystay imtixaankii shaqada waxaana la siiyay mushahar dhab ah. sanadkii 1987 wuxuu furtay shirkadiisa gaarka ah ee la yiraahdo Gardner Rich and Company. Maanta Krish waa hantiile oo hantidiisa lagu qiyaaso in ka badan 60 milyan. Wuxuu hadda caalamka u socdaalaa si uu dadka u dhiirigeliyo isagoo isla markaana caawiya dadka hoy la'aanta ah. Krish qisadiisa waxaa laga sameeyay filim guuleystay oo caan ah. Haddaba dhegeysta ama daawade filimkaas ma daawatay?